kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibadeena qiimaha badan oo dhammaantiinba meel walba aad joogtaan. halkan waa janalka wararka ee Samakaab TV. mar walbana waxaynu soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay dalka gudihiisa ka dhacaya akhbaaraadka kale ee ka qarsoon. qodobadan sida gaarka u eegi doonana waxaa ka mid ah dad u dhintay xayiraadii ay dowladda federaalka Kismaayo saartay iyo Axmed Madoobe oo shaaciya arrimo xasaasi ah. xog ku saabsan madaxweynaha Galmudug Xaaf oo 3 sababood dartood uga soo horjeestay dowladda Soomaaliya ballamo horey loola galay oo looga baxay ayaa ka mid ah. banaanbaxyo iska soo horjeeda oo magaalada Muqdisho ka dhacaya. madaxweynayaashii hore ee Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankooda banaanbax wada. dowladduna waxa ay doonaysaa inay qaban qaabiso mid kale oo iyaga uga soo horjeedo iyo digniin laga bixiyay ciidamada dowladda federaalka ee ka qaadaysa Muqdisho kuwaasoo la geenayo gobolka Shabeellaha Hoose. ku soo dhawaada saaxiibayaal qodobadaas oo dhammaystiran. fadlan haddii aad janaalkeena ku cusubtaana subscribe noo saar oo gambalaalkana taabo si aad markasta u noqoto qofka ugu horeeya ee wararkeena iyo warbixinadeena ay soo gaaraan. ugu horreyntiina barnaamijkeena faaqidaada wararka haddiinu ka bilaawno magaalada Kismaayo dad ayaa u dhintay xayiraadii halkaas dowladdu saartay ee dulimaadka ah. Axmed Madoobena waxa uu shaaciyay arrimo kale oo xasaasi ah. Axmed Madoobe oo ah madaxweynaha Jubbaland dhawaanna mar kale loo doortay xilkaasi ayaa ka hadlay shirkii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ee u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka iyo sidoo kale dad uu sheegay inay u dhinteen xayiraadii ay dowladdu saartay Kismaayo. Axmed Madoobe oo xalay khudbad ka jeedinaya xalfadda sanad guurada afraad ee telefishinka Jubbaland ayaa sheegay inaysan jirin wax la yiraahdo siyaasad loo dhan yahay. Axmed Madoobe ayaa xusay in deynta Soomaaliya lagu leeyahay aysan suurtagal ahayn in caalamka uu ka cafiyo maadaama ayuu yiri dowladda dhexe aysan maamul goboleedyada u wanaagsaneyn. deyn cafintu dhaqan geli mayso iyadoo madaxda filla Soomaaliya joogto ay ku tumanayaan sharciga dalka. waa in qof walba oo Soomaali ah ka qayb qaata deyn cafinta dalka lagu leeyahay, balse haddii xaalku sidaas uu yahay wax soconaya male ayuu yiri Axmed Madoobe. Axmed Madoobe ayaa dhawaan dowladda Soomaaliya ku eedeeyay inay cunaqabateyn saartay shacabka Jubbaland halka wada hadal arrinkaas lagu dhameynayana ay diiday. wuxuu sheegay in xayiraadda la saaray Jubbaland ay keentay inay dad ku dhintaan shacab ah magaalada Kismaayo kuwaas oo diyaaradihii qaadi lahay la waayay taas oo ay xayiraaddu sababtay. dhanka kale Axmed Madoobe ayaa si weyn u soo dhaweeyay madasha looga dhawaaqay magaalada Muqdisho taas ay ku mideysan yihiin xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira kuwaas oo ugu horeeyaan xisbiyada ay hogaaminayaan madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed. beesha caalamka ayaa shalay shirkii lagu soo gabagabeeyay Muqdisho ka sheegtay in lagama maarmaan ay tahay in dowladda Soomaaliya ay dalka ku maamusho hannaan siyaasadeed oo loo dhan yahay. sidoo kale beesha caalamka ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqday inay si degdeg ah u xalliso khilaafka kala dhaxeeya maamulka Jubbaland. waxaana xusid mudan in dowladda Mareykanka ay shuruud adag ku xirtay in arrinka dhaqaalaha Soomaaliya ay ku caawinayso dhanka maamul goboleedyada in heshiis ay la gaarto. safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yomoto oo khudbad jeedinayay waxa uu sheegay in Mareykanka uu diyaar u yahay taageero uu Soomaaliya siiyo, balse loo baahan yahay in siyaasadda Soomaaliya ay noqoto mid mideysan. sidaas darteedna ay heshiis yihiin dowladda federaalka iyo ayna muhiim dhankooda u tahay inay heshiis yihiin dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. wakiilka xogayaha guud ee gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Iswan oo naftirkiisu shirka khudbad ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay muhiim u tahay markasta inay arrimaheeda siyaasadda ka shaqeeyaan. dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayuu ugu baaqay inay xal siyaasadeed oo degan ku wada shaqeeyaan. sidoo kale wakiilada ka socday dalalka UK, Faransa iyo Germany ayaa bogaadiyay horumarka ay dowladda federaalka u qaaday dhanka dhaqaalaha, laakiin waxa ay ku baaqeen in la helo iskaashi dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dhexmara iyagoo toos u abaaray khilaafka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland kaas oo 2 bilood ee la soo dhaafay taagnay. waa tahay xog cusub oo la helayna waxa ay sheegaysaa in madaxweyne Xaaf uu 3 sabab dartooda uga baxay heshiiskii uu dowladda Soomaaliya la galay. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa dhawaan qoraal uu soo saaray ku sheegay inuu ka laabtay wakiilashadii wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo uu wakiishay oo ahayd in dhammaystirto dhismaha Galmudug. warbaahinta ayaa ogaatay in madaxweyne Xaaf uu go'aansaday inuu ka soo horjeesto dowladda Soomaaliya kadib markii looga baxay 2 ballan oo mar sii horeysay la galay madaxda dowladda. 3 qodob oo sababtay inuu Xaaf ballankii dowladda ka baxo ayay warbaahintu heshay. qodobka koowaad waxa uu yahay in loo diiday dhammaystirka lacag lagu leeshiyo taas oo dhammeyd $4 milyan waxaana horey loo siiyay kala bar lacagtaasi. 2 in loo diiday xubno oo lagu leeshiiyay inuu ka mid noqdaan guddiga doorashada ee Galmudug kuwaas oo dhawaan lagu dhawaaqayo. 3 in loo diiday lacag dhan $1 milyan
taasoo ahayd lacag loo fasaxay maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir. dowladda Soomaaliya ayaa waxay aaminsan tahay haddii xaaf lacagtaas loo dhammaystir u harsan inuu kula dagaalami karo dowladda kana soo horjeesan karo qorshaha ay filla Soomaaliya ka wada Galmudug. waxaa jira warar sheegaya in dib u bilowday wadaxaajood u dhaxeeya madaxweyne xaaf iyo madaxda dowladda Soomaaliya kaas oo ay wadaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kana soo jeedo deegaanada Galmudug kuwaas oo la leeyahay waxay aad u taageersan yihiin qorshaha dowladda ee Galmudug. waa tahay magaalada Muqdishona waxaa la qorsheynayaa banaanbaxyo iska soo horjeeda. mid waxaa wada Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif kuwaas oo ah mucaaradka ugu waaweyn ee dowladda Soomaaliya, halka midka kalena la leeyahay dowladda ayaa abaabulaysa oo iyaga naftirkooda ayaa looga soo horjeedaa. warar ay warbaahintu heshay ayaa waxay xaqiijinayaan in Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay abaabulayaan banaanbax ka dhan ah hoggaanka dowladda Soomaaliya. banaanbaxa oo ciwaan looga dhigan waan u dulqaadan weynay ayaa lagu wadaa in dhowaan uu ka dhaco magaalada Muqdisho, waxaana ka qaybgeli doona labadii madaxweyne ee dalka soo maray ee hoggaanka isku bedelay. weli si rasmi ah looma sheegin barta lagu qaban doono, balse waxaa dhinacyadu isku raaceen in banaanbax la qabto isla markaana ay ka qayb galaan Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud. dhinaca kale waxaa jira warar kale oo sheegaya dowladda Soomaaliya inay wado dadaal xooggan oo ay doonayso inay banaanbaxaas uga soo horjeesato. xukuumadda ayaana doonaysa inay gebi ahaantoodba isdaajiso, waxaana ay wadaa qorshe kale oo ah banaanbax kale inay abaabusho kaas oo madaxweynayaashii hore ee looga soo horjeedo. banaanbaxaas ayaa waxaa qorsheynaya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir kuwaas oo weliba aad ugu xiran madaxtooyada Soomaaliya. si kastaba ha ahaatee magaalada ayaa maalmaha soo socda waxaa suurtagal ah inay ka dhacaan banaanbaxyo isdiidan, inkastoo dowladdu ay suurtagal tahay inay awoodooda adeegsato. lama oga sida uu arrinkani ku dhici karo, waxaase xusid mudan in dhinacyada dhammaantood ay saameyntooda leeyihiin. ugu dambeyntiina saaxiibadeena qiimaha badan oo barnaamijkeena waxaan ku soo afmeeraynaa digniin ayaa waxaa laga bixiyay ciidamada dowladda federaalka ay u qaadayso gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana ciidamadaas ay ka mid yihiin booliiska Soomaaliya. meelaha al-shabaab laga saaray in lagu wareejiyo ayaa la qorsheynayaa. dowladda Soomaaliya ayaa diyaarisay ciidan ka badan 400 oo askari kuwaas oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya isla markaana la geyn doono degmooyinka laga qabsaday al-shabaab oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. warbaahinta ayaa heshay xog sheegaysa in ciidanka daraawiish ah la geyn doono deegaanada Sabiib, Caanoole iyo degmada Awdhigle oo dhowaan laga qabsaday al-shabaab. ciidamadan oo u badan dhalinyaro ka tirsan booliiska magaalada Muqdisho ayaa dhowaan loo daabuli doona deegaanada aan soo sheegnay, waxaana halkaas laga qaadi doonaa ciidanka militariga ee ku sugan, iyadoona la qorsheynayo in meelaha kale ee al-shabaab ay ku sugan yihiin ay gaaraan. saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ciidanka booliiska ee Soomaaliya aysan ka bixi karin amniga deegaanadaas al-shabaab laga saaray maadaama ay al-shabaabku ku hareereysan yihiin. sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay in booliiska Soomaaliya aysan lahayn hub fara badan iyo sidoo kale tayo gaarsiisan kan militariga Soomaaliya, halisna ay al-shabaab u geli karaan. waxaan ka digaynaa in la laayo dhalinyaradaas oo qaarkood aysan ahayn qaangaar ah. al-shabaab ayaa deegaanadaasi militariga ay ku sugan yihiin ku hareereysan, ayuu yiri sarkaal ka tirsan booliiska Soomaaliya. ciidankan ayaa la sheegay inuu hogaaminayo sarkaal magaciisa lagu soo koobay Generaal Sulub. ciidankaas ayaa isugu jira kuwo ay tababartay dowladda Turkiga iyo sidoo kale kuwo hore looga soo wareejiyay Nisa oo ku sugnay xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho. guud ahaan saaxiibadeena qiimaha badan oo barnaamijkeena faaqidaada wararka intaas ayaan ku soo afmeeraynaa. fadlan waxaan ka codsanaynaa haddii aad channelkeena ku cusub tahay inaad subscribe inoo saarto gambaleelkana aad taabato si markasta aad u noqoto qofka ugu horeeya ee wararkeena iyo warbixinadeena ay soo gaaraan. fadlan muuqaalkana saaxiibadaada kale la sii wadaag si ay u sii daawadaan. nabadgelyo ammaanaha la daawado meel kastoo aad dunida kaga sugan tahay.